markii nabadii la gaaray dhinacaana shidada u badnayd dhinaca galmudug yaa shida ka socotay weliba si gaara meel yar dad yar oo kooban ama reer yar ay raadeen markii loo fiiriyo dadka tiradiisa ayaa muxuu ahaa dhibaatada geysanayay ilaahay amarkiisa saddex beer markaa joogay waxay dileen nin bay dileen odayaashii baan u yeeray adinka soo diyaar garooba way xirayaan awoodna ma baliyo markaas ciidanba ma utaba ciidanka yarkaa xasilinta aan haystaa ma ahane daacadnimadeeda iyo kalsoonideeda yaa waxaan ku qabay inay samaynayaan oo ka baqayaan warkaas marka arrin baan rabaa idiin sheegay example muxuu ahaa hadda ka hor baan halkaan markii xilka laga qaadan halkaan mari markii shirarkii awoodeen dayn baan qaatay hal sano dayn aan qaatay waxaan deymiya nabadda hal sano ay deymiye sababtaa saas u leeyahay waxaan lahaa hadday sanad bay markaas nabad u joogaan hadday sanad kala qaataan ayagaa nin walba wuxuu leeyahay nabadda anay anfacaysa wuu bararhaya marka si aan dayntii u guda waa inaan dadkii haddana kusoo laabtaa oo muxuu ahaa nabaddii ugu baraarujiyaa oo xoojiyaa oo mar walba u ag socdaa markaan halkaan imid yaa markii nabadii la gaaray dhinacaana shidada u badnayd dhinaca galmudug yaa shida ka socotay weliba si gaara meel yar dad yar oo kooban ama reer yar ay raadeen markii loo fiiriyo dadka tiradiisa ayaa muxuu ahaa dhibaatada geysanayay waxbay dileen waxbay dhaceen maalintii dambaan dadkii kale dhammaan taga saaran ayaga shiriyey waxaa su-aal baa idin weydiinayaa nabadii gobolkaa ka dhacday maxay idiin dhintay adinka waxba nooba dhimin ba yidhahdeen adigu hadday haddaad adigu u dhinteen ka warraba waa dhibaatay yidhahdeen haddaa waxaa hal qof haddaad dishaan waxaad ogaanaysaan adinka u qoonan madaxda odayaasha dhaqanka u qoonan ilaahay amarkii saddex beer markaa joogay waxay dileen nin bay dileen odayaashii baan u yeeray waxaan idhi haddaad keeni weydaan ninkii wax dilay haddaad keeni weydaan ogaada dhibaato ayaa idin qabsanaysa haddaa ayagii weydaan dadkii dadka dilay waxaa keentaan aabbahood iyo hooyadood iyo xoolahooda soo dhaca ii keena haddaad samayn weydaan oo arrintaas idinku adkaato adinka soo diyaar garooba way xirayaan awoodna ma baliyo markaas ciidanba ma utaba ciidanka yarkaa xasilinta aan haystaa ma ahane daacadnimadeeda iyo kalsoonideeda yaa waxaan ku qabay inay samaynayaan oo ka baqayaan warkaas marka waa og yihiin inay dhab iga tahay waxaan ku dhaartay oo intaasoo kitaab baan ku marhayaa haddii aad muxuu ahaa fulin weydaan puntland iyo galmudug iyo wax allaaliya wixii gobolkan muduga inta mideeyaa idinku soo duulaya aniga idinku soo duulaya idin laynhaya qofka hogaaminaya ogaada shirka waa sige saddex maalmood markii laga soo wareegay habeenkii dambe saddexda nin ii keenay saddexdaa nin waa saddexdii ninka dadka dilay halkaas waxay ku tusaysaa haddaad dadkaan hadda aad sheegaysaan oo aad leedihiin nolol bay kala haystaan iyo muxuu ahaa waxbay samaynayaan iyo fidnay nugula dhex jiraan iyo haddii aad madaxdiina tashataan oo gubernatoriyaasha iyo gudoomiyaasha iyo taliyaasha iyo muxuu ahaa la midoobo oo go-aan la qaato la yidhaahdo ninkaan waa reer galmudug ee daradaanu sameeye waa caddahay wuxuu rabaa inuu nabadda naga qaado go-aankaan ka qaadanayna muxuu yahay hal mar baa dilaynaa ayadoo la duulahayo oo la isugu tagayaa la dilaaya ninna kuma dhici kara mar hadduu og yahay in gobolku kusoo duulayo aysan qabiil ahayn iyo jifo iyo koox midna aysan hayn ninna kuma dhaco inuu ku dhiirado inuu dhibaato geysto si taas loo gaarana muxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka dhinacan iyo kuwa kale isla go-aan gaaraya intay isla fiiriyaan inay go-aankooda gaaraan yidhahdaan haddaan puntland maxkamadaheedii iyo galmudug go-aan baan gaaray waxaana ku xukunay ninkaasi in muxuu ahaa cadaaladda la hor keeno xoogna lagu soo qabto go-aan fiicna la gaaro taas idinku adkaan mayso aniga saasaan gudoomiyaasha kula talin lahaa ma adkaanayso wax idin dhibayaa ma jiraan ninkii halkaan wax ka biiya iyo kii xagga wax ka biiya iskugu taga oo iskusi u dila oo iskusi u xira oo iskusi u qabta anuu saasaan ku talin lahaa